بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين saaka waxaan u fadhinaa inaan soo gudbino insha allahu tacaala inaan soo gudbino natiijadii ardayda waxaa jiray laba qaybood oo imtixaan galay ardaydii tafsiirka qur-aanka kariimka ee sheekh maxamed cabdi umal online-ka ka baranayay waxaa jiray arday gashay 5 juz iyo kuwa galay 3 juz natiijadoodii inaan soo gudbino waxayna la fadhiya maanta sheekheena alwaalid xafidahu allahu tacaala sheekh maxamed cabdi umal natiijada markaan soo gudbino kadib waxaa jiri doona kelimad uu sheekhu inoo soo jeedin doona insha allahu tacaala marka hore waxaan ku bilaabayaa inaan natiijada sheego insha allahu tacaala gaar ahaan ardaydii gashay 5 juz waxaa baraarujin mudan dhammaan in ardaydu ay wada baaseen oo ay mumtaaz yihiin ardayga ugu hooseeya natiijada uu keenay waxaa weeyaan 95 sheekhana 6 arday baa 100 keenay inta kalena 100 ilaa wixii ka hooseeyay ilaa 95 ayay wada keeneen alxamdulilah ardayga ama ardayada ugu horeysa ama 6da arday ee 100 ka keenay waxaa ugu horeeya istaahil nuur oo joogta Turkiga labaad waxaa galay oo isla 100kii keenay raxma saciid waa lambarkii koowaad weli 100 bay wada keeneen raxma saciid oo iyaduna joogta Nairobi waxaa kaloo 100 keenay naciima cumar khaliif oo iyaduna joogta Soomaaliya waxaa kaloo 100 keenay Aisha Abdulqaadir oo iyaduna joogta Mombasa waxaa 100 keenay sidoo kale Asmaa Xaaji oo joogta South Africa waxaa kaloo 100 keenay Luul Cabdiraxmaan Aadam oo Soomaaliya joogta waxaa kaloo 100 keenay Farxiya Nuur oo iyaduna Soomaaliya joogta waa 7 arday way halka oo min 100 ah waxaa ku xiga oo 99 keenay Asmaa Xuseen oo joogta Bangladesh joogta waxaa kaloo 99 keenay Maryam Ismaaciil oo Nairobi joogta Maariya Cabdisalaam oo Soomaaliya joogta iyaduna 99 Luul Ismaaciil Cabdi oo Kenya joogta 99 Salma Maxamuud oo iyaduna joogta Turkiga waxay keentay 99 Xafsa Xasan oo joogta Soomaaliya iyaduna 99 Zaynab Maxamed Nuur oo Nairobi joogta 98 Fortuun Cabdullaahi Axmed oo Soomaaliya joogta 98 Amal Muusa oo joogta Norway waxay keentay 97 Asli Ibraahim oo Soomaaliya joogta 97 Hani Xuseen oo Nairobi joogta 95 waa 18 arday oo galay muxuu ahaay 5 juz oo tafsiir haddaan usoo gudubno ardayda gashay 3da waxaa galay tirada gashay ardadaasi waa 38 arday sheekhana kuwii horena 18 arday ahay ardayda gashay 3da iyagana ardayga ugu hooseeya wuxuu keenay 95 sheekhana Allah barakeeyo ardayga koowaad Fardowsa Maxamed Aadam oo joogta Zambia waxay keentay 100 Xakiima Yuusuf oo joogta Yaman waxay keentay 100 Shamsa Muhammad oo joogta Kenya waxay keentay 100 Shukri Umar oo joogta Yaman waxay keentay 100 Zamzam Sheekh Abdulkariim oo joogta Soomaaliya waxay keentay 100 Faatima Cali oo Kenya joogta 100 Ayni Isxaaq oo joogta Soomaaliya 100 Jamiila Cuthmaan oo Kenya joogta 100 Amina Kaltuum Dalmar oo joogta Canada iyaduna 100 bay keentay intaas arday waa 100 weey Amina Zahra Ibrahim oo Soomaaliya joogta waxay keentay 99
rayaaq maxamed oo kenya joogta waxay keentay 99. sulayqa axmed oo joogta maraykanka waxay keentay 99. dayman xaaji yuusuf oo joogta UK waxay keentay 99. maryam yaasiin oo joogta turkiga waxay keentay 99. aamine cabdilaahi محمد oo Kenya joogta waxay keentay 99. maryam rashiid oo joogta Sweden 99. bahja cabdilaahi طاهر iyaduna waa 99. qadan muusa oo Soomaaliya joogta 99. siraad faarix oo Soomaaliya joogta 99. ilhaam cabdullaahi oo Kenya joogta 99. maryam axmed oo Soomaaliya joogta 99. iqra muumin oo Soomaaliya joogta iyaduna 98. ilwaad sheekh cali oo Kenya joogta Mombasa 98. xaali xirsi oo joogta Sweden 98. zaciima cabdulkariim Soomaaliya 98. satra cabdulqaadir Kenya Nairobi 98. ayaan cabdi saciid Kenya 98. khadiija maxamed oo joogta Soomaaliya 98. saacadiya xaashi oo Kenya joogta 98. faatima maxamed oo Yemen joogta 98. fartuun aadam cabdiraxmaan oo Soomaaliya joogta 97. xawaa maxamed xuseen oo Soomaaliya joogta 97. hodan cabdulqaadir oo Soomaaliya joogta 97. raxma xuseen oo Kenya joogta 97. khadra maxamed oo joogta Holland 97. canab cabdisalaam oo Soomaaliya joogta 96. hiba cabdilaahi oo Soomaaliya joogta 96. fardowsa cabdulqaadirna oo joogta Soomaaliya 95. intaa waa intii imtixaanka gashay sheekhana. waxaa jira arday kale oo aan gelin imtixaanaadka oo markaa hoos soo marayay oo ilaa tiradooda haddii aa soo koobna gaaraya ilaa 60 meelaha, laakiin hadda ay doonayna insha Allah imtixaan kale inaan u diyaarino. marka natiijadu waa intaa. barakallahu fiikum. بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. waxaan leeyahay marka walaalayaal ardadan ilaahay u waafajiyay inay tafsiirka xoogga saaraan oo qaarna ay 15 juz hadda marayaan, qaar ay 10 juz marayaan, qaar 5 juz soo marayaan oo isku taxallujinaya inay muxuu ahay quraankii ku dhameeyaan tafsiir iyo faham ku dhameeyaan, waliba la mutaabacaynayo oo loo saxayo oo la toosinayo oo wax weey waa nicmo aad iyo aad u weyn. waxaanan hubaa oo aan xaqiiqa ah marka nusuusta loo noqdo ruuxa quraanka oo dhan xifdisan qiraa'aadka 10 iyo ka badanna haya, laakiin quraanka aan fahansanayn macnihiisa waxa ka qiimo badan hal juz oo quraanka kamid ruuxa macnihiisa barta. dariiqa marka la qaaday inuu khaldan yahay baad garan kartaan. oo maanta waxaad arkaysaa dadkii in badan oo kamid gaar ahaan Soomaalida dhalinyaradii iyo dadkii waxa lagu daatay quraanka xifdigiisa. xifdigu waa fiican yahay, xifdigu waa loo baahan yahay ummadda in la helo qaar quraanka xifdisan oo kor ka haya, laakiin ummaddoona laazim kuma wada ah. waxaase ummadda laazim ku ah ruux walba inuu quraanka wax ka fahmo, markuu saxdo carabka toosiyo oo quraanka akhrintiisa carabka ku toosiyo wuxuu ku cibaadaysan lahaa carabka ku toosiyo. ahmiyadda labaad waxaa imaanaysa markaas quraanka fahamkiisa iyo macnihiisa siduu ku garan lahaa inuu ku dadaalo. saas daraadeed baan xoogga waxaan saarnay bal in la helo ummadda dhexeeda laga helo muxuu ahay olo cusub oo sida Soomaalidu quraanka xifdintiisa muxuu ahay ay dadaalka ugu bixisay oo dhalinyaradu dadaalka ugu bixiyeen intaasoo xufaad oo tartamada adduunka quraanka kariimka ay qaadayaan oo meel walba waalidkii kula dadaalayaan in quraanka la xifdiyo, in saxwo iyo baraarug iyo dadaal iyo olo kaasoo kale loo qaado dhanka kale oo ah quraanka macnihiisa in la baro bulshada, inay dumarku bartaan oo raggu bartaan oo dadka waaweyn bartaan oo dadka yaryar bartaan oo ololahaasi marka inuu bilowdo ayaan muddaba dadaalkeeda wadnay. ilaahay fadligii tanaa marka kamida yani wax weeyaan ardadan hadda imtixaanka laga qaaday oo ay muxuu ahay raggan ardadayda ay ka qaadeen
ilaahay khayr ha siiyo oo ay mashruuca iyagu hayaan oo muxuu ahaay ay ardadan imtixaanaadkana ka qaadeen soo kobciyeen ardaygu isagaa dadaalaya wuxuu isticmaalayaa tafsiirkii la duubay isagaa waqtiga bixinaya kadib markuu dhowr juz dhammeeyaba waa lala fadhiisanayaa wixii uu soo diyaariyey baa laga dhegaysanayaa waa loo saxayaa muxuu ahaay wixii ka khaldan laqmada wixii ka khaldan muxuu ahaayey aayadda iyo tafsiirkeeda iyo macaanida ku jirta iyo wixii ka khaldane uu khaldaan loo toosinayaa ruuxu markuu sidaasi marka la toosiyo oo uu qur-aanka sidaa ku dhammeeyo waa ruux marka tafsiirkii qur-aanka si fiican u garanaya arrintaasi marka waxa weeye wax badan baa ka hirgalay ilaahay fadligiis madaaris badan baa soo baxday oo hadda tafsiirka xoog saaraysa kuwan online-ka hadda gabdhahani wax ku barteen ayaa soo baxay kuwo waxaa jira muxuu ahaayey madaaris oo qaybo ka mida madrasada tafsiir ka dhigay oo ardadii yaryarkii iyo dadkii waaweynaaba ay wax ku baranayaan marka arrintaa waxaan rabaa in la xoojiyo insha allahu tacaala waxaan leeyahay marka gabdhahan muxuu ahaayey 56 bay isku yihiin baan u malaynayaa laga qaaday xilli hore qaarna hadda ay 15 juz sii marayaan qaarna ay 10 juz sii marayaan qaar ay muxuu ahaayey daba socdaan runtii waa idinku tahniyadeynayaa arrintaa iyada ah waana arrin aada loogu farxo waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaad farqi weyn aad dareemaysaan markii aad qur-aanka tafsiirkiisa bilowdeen oo qur-aanka macnihiisa aydan garanaynin iyo maanta oo tafsiirka idiin baxaya macnihii qur-aanku inaad farqi aad u weyn dareemaysaan oo nolol cusub iyo isbeddel weyn noloshiina inuu ku dhacayo shaki igagama jiro marka arrintaa iyada ah sii xoojiya insha allahu tacaala waxaa kaloo samaysaan siina baahiya oo barnaamijkaasi ha la baahiyo oo ha la faafiyo in bulshada lagu baraarujiyo qur-aanka macnihiisii way fududahay hadda muxuu ahay barnaamijka adeygii hore ma aha hooyadu iyadoo muxuu ahaayey jikadeeda ku jirto raashinka karsanaysa ayadoo shaqadeeda haysato ruux isagoo xafiiskiisa fadhiya ruuxu isagoo dukaankiisa jooga ayuu diyaarinayaa macnaha oo tafsiirkii la soconaya oo dhagaysanayaa oo haddana muxuu ahaayey markii la imtixaano oo 5 juz uu dhammeeyo 10 juz dhammeeyo oo haddana la imtixaano wixii baa loo saxsaxayaa oo muxuu ahaayey loo xoojinayaa marka waa dariiqo sahlan oo xataa adduunyadii iyo shaqadii iyo waxbarashadii kale ruuxu watay iyo ayna iska hor imaanin oo la isku wadi karayo ayaa muxuu ahaayey weeyaan marka meelo badan runtii way ka socotaa intaan ka warhayo oo gurubyo badan baa jira oo hawshaa wada ragga hadda barnaamijkan wada waa raggii aniga aan ka saaray muxuu ahaayey kooxdii ugu horreysay oo aan tafsiirka qaabkan hadda aan uga saaray oo 5 juz markay dhameeyaan baan imtixaanayay markay qur-aanka wada dhameeyeen tafsiirkiisana imtixaan guud culimadu ka qaadeen 3 culimo baa imtixaanay raggii muxuu ahaayey soo maray weeye dowladda iyo marxalada soo maray ayaa barnaamijkan gacanta ku haya ilaa khayr ha siiyo dowladtii labaad fawjkii labaad iyo raggii labaad oo iyagana 30 iyo dhowr ah ayaa iyaguna waxay qalin jebin doonaan ramadaankan hadda soo socda oo iyagana hadda gacanta ku hayo raggaasi sida aan isku ognahay waxa weeye nin walba meeshuu tago inuu risaalada tafsiirka ah uu muxuu ahaayey wado gaadhsiiyo rag waxaa ka mid ah raggii ugu muhiimsanaayo hadda Soomaaliya joogo saciid muuminiin la yiraahdo qardho jooga ilaa khayr ha siiyo oo barnaamijkii xagga u naqliyey oo runtii waxa weeye wax weyn meesha ka qabtay qardhamayna waxay ahayd magaalada dhigi jira carmo jooga waa raggii halkan tafsiir kaga saaray ilaa khayr ha siiyo halkaana hawl weyn ka haya marka hawshaas ha la baahiyo oo raggaasi dowladka tafsiirka aan ka saarayo waxaan jeclahay nin walba meeshuu tago ama online ha ku gudbiyo ama si live ha u gudbiyo barnaamijka ummadda ha la gaarsiiyo insha Allah tacaala rajada ugu weyn ee ummaddu leedahay waa in quraanka macnihiisa ay barato oo marka nolosheeda uu ku soo noqdo quraanka macnihiisa insha Allah tacaala aad baan idinku tahniyadeynayaa mar kale gabdhaha maanta nataa'ijtoodii la guddoonsiiyey imtixaanka meesha hadda maraysaana kulli hadda imtixaan labaad baa idinka qaadi doona markaad quraanka dhamaysaana insha Allah tacaala raggan culimadoodii baa idin soo fadhiisan doona oo idin imtixaani doona biidhnaahi tacaala tabaaraka wa tacaala sidaas marka waxa weeye la idinku guddoonsiin doona ijaazaad iyo ku saabsan tafsiirka quraanka ku saabsan Allah idin barakeeyo meel aad joogtaan baa idin xifdiyo barashada quraanka iyo cilmiga sharcigaana Allah idin fududeeyo innagana ilaahay tabaaraka wa tacaala hayna waafajiyo ikhlaaska iyo amalkeenu inuu isaga dartii noqdo aad baan idin salaamaya una mahadsantihiin خير بان اسكو ognahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك شيخنا waxaan halmaamay inaan baraarujiyo waxaa jira gabdho jooga muxuu ahay qaxooti oo wadaad la yiraahdo Sheekh Abbas oo aniga iyo Sheekh Abdullahi imtixaan ka qaadnay iyagana shinkiisu dhameeyay intii amaanayd oo halka ayagana tafsiirkii ka wada dariiqada laakiin life gabdhihii loo barayo ilaa adigu 6 gabdhood iyo kuwa ka koreeyo hadda hore imtixaan ka qaadnay iyagana 10 ma maleeyay inay marayaan baa jira wadaad la yiraahdo Abbas oo halka madrasa ku leh tafsiirka dariiqadii nagula dardaaranta ku bara ayaa jiray marka sheekh insha Allah inaga gaarsiiyo lagu salaam وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي جوابها كلا دوان مدارس تفسير القرآن كجيران ما كون هذا الشيء هالنقطة كوا كلا جيرو جروبية أو أونلاين كجيرا وقار حديد إلى ليهين وركملوا البوت شوكتان بإن شاء الله تعالى الله يدين فضوضية مهمة داس دال كان هلا الله والله إن شاء الله تعالى إلهي وحر كبريا إنه قديو كوا النبي المام صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه روحاس أول من يدخل الحديث مضمون كيسي معنيه سعيد وهو الرئيس جلس وحواي وعد القرآن كمعنيه برانيس هذانا بريسا السجانة كم مضن إنه قالوا روح القرآن ككلي حفظ السن لكن عن معنيه سجرانين خير الله يديسيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى سبحانه وتعالى خيرها بدن الله سي شيخنا الشيخ محمد عبد أمل waxaan baraarujinayaa markii natiijada aan yeerinayay ardayda saddex gashay saddexda jus arday baan magaciisa qalday Fardowsa Maxamed Aadam Xakiima Yuusuf waxa weeyaan waa Xafsa Muhammad weeyaan Shamsa Muhammad baan akhriyay halkaana ku baraaruga waa ardayda boqolka keentay ayay ka mid tahay dhammaantiin waan idin mahad celinaynaa xuduurka qiimaha badan aad soo xaadirteen macallimiinta oo dhan way joogaan waxa la jooga Sheekh Abdullahi Shuguleed ilaahay subhanahu wa ta'ala wixii aad barateen Allah idinku anfaco ilaahay idin fududeeyo sida sheekhu sheegay ardayda dhameysay waxaa jira bilay Sheekh Abdullahi arday aan la yeerinin oo imtixaanka culimadu aynan ka qaadin laakiin si khaas ah looga qaaday kuwa natiijadooda si khaas ah loogu soo sheegi doono insha Allah ta'ala dhammaantiin waa mahadsantihiin الله يدين بركاته وإنه أسبوع صوص عشرة دي بالله إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.